ololaha nadaafadeed oo ay sameeyeen maamulkii shacabka xaafadda Bakiin oo qayb ka ah xaafadaha degmada Cadaado ee gobolka Galgaduud ayaa waxaa laga sameeyay qaybo ka mid ah gudaha xaafadda iyo fiyaaliga degmada Cadaado ee gobolka Galgaduud waxaana ka qayb galay xubno ka socday maamulka degmada Cadaado waxaan ololahan u ahaa mid qashinka looga nadiifinayo guud ahaan gudaha magaalada Cadaado ee gobolka Galgaduud maamulka xaafadda Bakiin ee degmada Cadaado ayaa ololaha nadaafadeed kadib sidaan warbaahinta u sheegay saakay waxaan u soo kacnay oo aan ka shaqeynaynaa ololo nadaafadeed oo qaybta waxaan ka shaqeynaynaa xaafadda Bakiin maadaama roobkii uu soo dhow yahay oo xil roobaad la joogo qashinkana waxaad dareemaysaan in uu ka imaan karo cudurro badan ay ka imaan karaan waxaan ka codsanaynaa xaafadda Bakiin in ay nadaafadeeda ku dadaasho jidadka luuqyada laamiga dhinac walba sida hadda ay quruxda badan oo isu soo abaabuleen oo ay uga shaqeeyeen nadaafadda in ay si laba jubaaraan isxilqaankaas inay wax ku wadaan ajir bay ka helayaan ku dagashay ka helayaan dhinac walba ay amaalmarin iyo xaq ilaahay uga helayaan ururka hadda tawakal oo saaka nadaafadda ka shaqeynayay waxaa la rabaa in ay lama laab ay u sameeyaan shaqadaas iyagoo awalba hore u shaqeyn jiray waxaa laga codsanayaa in ay shaqada sii wadaanoo ay abaabul xoog la ay galaan oo inta hadda ay qabteen ay sii laba jubaaraan waxaan mahad celinayaa waan kala soo qayb galnay ururka nadaafadda tawakal waxaan sidoo kale mahad celinayaa gudoomiyaha xogayaha degmada Cadaado gudoomiyaha xaafadda Bakiin gudoomiyaha xaafadda Kaama Kulmiye ururka xaafadda Bakiin arrin tawakal oo nadaafadan maanta aan ka soo qayb galnay oo aan ka shaqeynay nadaafad la'aan waa nolol la'aan xogayaha degmada Cadaado Duraan Goodare ayaa waxa uu sheegay in loo baahan yahay in xaafadaha kale ee degmada ay ku darsadaan sida xaafadda Bakiin iskaga nadiifisay qashinka dhooban qaybo ka mid ah xaafadaha magaalada iyo gudaha magaalada kuwaas oo xil roobaadkan dhibaato ku ah hadii roob u yimaado wuxuu dadkaas ku amray in muhiim ay tahay qashinka laga aruursho magaalada si magaalada bilicda u noqdo mid wanaagsan ka maamulahan waa dhiirigelinaynaa waa kaalmaynaynaa waa la soconaa waa la shaqeynaynaa xaafadaha kale oo degmada Cadaadana waxaan leenahay maamulkooda iyo shacabkooda waa inay xaafadda Bakiin ku daydaan waa inay ololaha nadaafadda ka shaqeeyaan waa inay isxilqaamaan sida xaafadda Bakiin isu xilqaantay waa inay isu xilqaamaan nadaafaddu waa iimaanka barkiis deegaanku waxa uu ku qurxoon yahay oo bilicda uu ku leeyahay waa nadaafadda dhammaan xaafadaha degmada Cadaado waxa la farayaa inay sida xaafadda Bakiin ololaha ay u wado ololaha ay u wadaan ay isxilqaamaan gaadiidkooda iyo gaarigacmadooda iyo qalabka nadaafadda agabka nadaafadda wixii ay haystaan inay isku xilqaamaan wixii maamulku uu insha Allah tacaala uu awoodana waa ka kaalmaynaya hadii Ilaahay idmo agabka nadaafadda ah sida darteed waxaan leenahay shaqo fiican ayaad qabateen reer Bakiin waadna ku mahadsantihiin siina wada sii joogteeya hadii Ilaahay idmo markii la ciido hadda bari waa ciide wixii ciida ka dambeeya shaqada sii jibaar hadii Ilaahay yiraahdo inaan ka daalina idin ka codsanaynaa runtii wadanku wuxuu ku soco karaa in la iskaashado oo qof walba meesha uu ku leeyahay uu ka qaato kaalintiisa maamul la soo dhaafay oo la nadaafid oo sidaan la mid ayaa ka socda qaar ka mid ah xaafadaha degmada Cadaado ee gobolka Galgaduud Xasan Axmed Maxamed Hirshabelle TV Galmudug